faa'iidooyinka ay biyuhu leeyihiin waxaan malanayaa inaan kulligan ka wada dhegsannahay ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri wajacalna min al-maa'i kulli shay'in hayyin afala yu'minuun waa su'aal uma baahnaba binaanka jirkiisa waxa la dhahaa 70% ama 65 sida ay kasoo burburinahay waa biyo lafaha iyo jiirka marka la isku soo daro waa 30% inta soo harta marka faa'iidooyinka ay leeyihiin dad iyo dugaag iyo duunyo meeshaas laga cabaayo biyo waa nolol waa faa'iidooyinka leeyihiin deegaanka iyo cimiladii waxba iska bedelaya oo dhir baa meesha ka bixaysa hawadii waxa laga qabow iyo xataa roobka inay soo jiidaan binaanki dhulka ku noolaa markay abaabiyalaan noqdaan way ka soo guuraan laakiin waxa laga yaabaa dadka inay meesha ku hakadaan horumarka wadanka hadii la rabo beero in laga sameeyo qayb ay ka noqon doonaan biyuhu wadooyinka ilaami hadii la sameyn doono biyo loo baahan yahay wax lagu qaso waxa la dhahaa biyo ugu badan waagi ilaamiga la dhisayay waxaan xusuustaa oo shirkadda ilaamiga dhisisay Sajis iyo Lofman la dhigi jiray waxa dhinac socotay shirkad la dhigi jiray Aquatero oo ceel ka qodi jirtay wadada dhan meesha laga shaqeynayay oo biyalaan waxta wadooyin lama sameeysan karo waxa kale oo la sheegaa biyuhu haday dhulka galaan oo aysan badayna ka aadin dhulkeena galaan inay faa'iido leeyihiin oo biyo hoose oo dhulka jiraan soo dhawaanayaan wadamada qaarkood Afrikadaas waxa la yiri markay iyagu biyaha cabi lahayn ka bateen inay biyaha celiyaan ee dhulka si u galaan inay ka shaqeeyaan arintaasna faa'iidooyinka ayaan intaasna rabay inaan ka xuso tan biyaha meelaha ay fadhiyaan hadii wax la iska weydiiyo meelaha qaarkood 150 meter cube baa lagu qiyaasay 150,000 oo meter cube halka berkada markii berkada ugu weyn 20 booyad laga dhaabiyo oo laga yaabo inay 3,000 oo meter cube noqdaan muxuu ahaay meelaha qaarkood 30,000 meelaha qaarkood 70,000 meelaha qaarkood 100,000 baa lagu qiyaasay waxa nooga cilmi badan nimanka injineerada ah shaqooyinka hadda aan qabano dhan waa facekii koowaad waxa ka harsan meelahaas ama face labaad ama laba face markii loo qaybiyo oo laga dhigo 3 taasana ku soo gabagabeynaya waxa kamida marka waxyaalaha loo baahan yahay in loo sameeyo protection difaac silig iyo lagu xiro si aan xoolaha iyo bahalaha iyo u gelin oo meelaha qaarkood xataa meelaha la yiri dadka naga dhimanaya biya hada meeshan baraagoyn ka qodaan waana masiibo ilaahay iska keenay dadku waa ku dhintaan aniga walaashay la dhaltay barkadeeda ku dhimatay marka waxa kama celin karno laakiin hadana in protection la sameeyo waa wax loo baahan yahay oo waa shaqo dhiman oo silig lagu xiro meelaha qaarkood in bac la dhigo oo biyo hadda inta hayaan in ka badan bay sahanayaan baca wadamadan dadku way yaqaaneen plastic oo dhulka dhiga jira kulli beeda iyo binaanka wax yeelayno khaatirta laga tashan karo in loo sameeyo meel ka baxsan meesha oo berkad ah oo laga cabo isla markaana in solar iyo la saaro meeri kale wuxuu ka cabi lahaayeen iyo in waxaan si u jiraan loo sameeyo team dayac tira isla markaana maamulo oo ilaaliya oo ina dhicin waxaan noqdaan wax inta la qabtay laga tagay oo mahjuura ah oo dhan iska baaba'an حتى وعلى شيء Soomaaliya meelo qaarkood masaajidda laga dhisay masaajidda noqdeen waxyaalahan la intifaacsan marka shaqo waxaasna si uu noqdaan shaqo la nafacsado oo loo baahan yahay oo la leeyahay in hadan hadhow team loo sameeyo ma aha in la iibinayo waa mustaqbalkeeni waa free laakiin waxa weeye inayna dayacmin oo iyana taas loo sameeyo inahaasna waa shaqooyin dame oo ama hal face ama laba face u baahan dhulkeenu kelmad waxaan isticmaalaynay hadda ay maqlayseen la dagaalanka biyo yaraanta waxaanu ka carnay biyo la'aanta waxaanu uga carnay wadankan biyo la'aan maaha Soomaaliya laba way bay leedahay badeedu waa 3,000 intaas oo 100 intaas oo tog bay leedahay laakiin waxa weeye biyo baa yar sideen uga faa'iideysan lahayn baa yar meelaha qaarkood waxa lagu gaaraa 30 mitir 50 mitir magaalada Boos oo caanka ah biyaheeda 20 mitir 30 mitir 50 mitir baa lagu gaaraa waxaana dhacaa mararka qaarkood in booyada loo isticmaalo oo biyo ay ka go'aan marka waxa weeye taasina waa isku deegeena iyo shaqo yaraanteena waxa laga yaabaa waqtiga Ilaahayna siiyay oo gaal iyo muslim uu siiyay oo nin indhala iyo nin caafimaad qaba iyo nin xoog leh nin walba Ilaahay siiyay cadaalad Ilaahay waxyaala kamid ah 24 saac Ilaahay la siiyay 24 saac qofka la siiyay laakiin qof walba 24 saac la siiyay sida uga faa'iideysto ayuu wax qabadkiisu noqdaa marka qalufkeena ku dhacay waxa weeye waqtigeena iyana ka faa'iideysan marka khayraadkeena kama faa'iideysano ali cilmi afyare aris ciise kaashe nimanka awaaninta markaad gabayadooda dhageysato waxyaalo mucjisaba kaaga soo baxaya laakiin Soomaalidu waxaan ficil uma bedesho
waana waxaynu ka wada simannahay barnaamijka ujeedooyinkan ka leenahay waa in dadku ay wada dhiiradaan waxaynu wada qabsanno isbarno inaynu 0.7 wax ku qaban karno inaynu $100 oo sanadkii bixino inaynu dalkeena dhanqani kaga dhigin karno inaynu isugu gurman karno inaynu ilaahay ka sokow inaynu cid kale u baahnaan gaal iyo muslim baa inagu isku filannahay iga raali aadaan ku dheeraaday wixii aan ku gafaynaa waa naftayda shaydaan aad baan idinka mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waqtigiina qaaliga aad na siiseen iyo dhageysiga wacan جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته